بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود الواحد كسو دواتان برنامج كيني أريمها وحبرشدة وحانا إذن لسعو السيني أنيقو عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حدق ما أنت هدي الله أود اللي هيدمو وحا مرتي إنه برنامج كأريمها وحبرشدة شيخ مهد أما مع المهد وبر الصوماليات ومعلم صوماليات وحانا وهل أبوري برنامج وطلقالي أرضي الصوماليات كنا القربها إن أي كفائدستان برنامج هو برنامج ديني وحاونا أفوضين يا أرضي الصوماليات كو كورتي قربها كنا القربها إن أي قرآن كريم هذا الكرب سبحانه وتعالى سفي عن أي أبرتان وحاونا كبلا بيا هنجادة وحاونا برنامج كجارسينيا إلى هير أي قرآن كودي سفي عن أو هير سرعة أو أي سن وحاونات أي سن أبهنين أي وآخر سن كران بركا شيخ مهد كسودو برنامج كأرمها وحبرشدة عندها وهي جزاك الله خيرا أدعو مهد سنتها وحان ربا مركو أوهرس إنان كويديو سيان برنامج كان أبلابنو ومحي أجيتك أتكلهيد برنامج كان mayduxi.com ayaa la yiraahdaa barnaamijka mayduxi.com markii aad aasaasay muxuu ahaa ujeedka aad ka lahayd barnaamijka markaan aasaasay ujeedada aan ka lahayn waxay ahayd waxaan cabaar caawinaynaa caruurta Soomaaliyeed ee dugsiyada Quraanka aado waxaan aragnay dhibaatooyin fara badan oo kaga yimid dhinacii waxbarashada siiba fahanka Quraanka waxaan fiirinay waalidkii وعروت اللي دذاليو معنى كست باوركي كوضة هدو روب دايو هدو برف دايو هدي قرح ذا كل شيء دذال كأتك وبدن أي عروتو ذكرنا يعني يجعلك إلى جعليهن إنه هرمر جاران القرآن كالله برتان معني هيسا iyo akhrintiisaba marka aad baan u fiirinay waxaan daraasayn badan ayaan waxaan ku fiirinay qaabka waxbarasho ee hadda dugsiyada ay wax ku wadaan waxaan aragnay caruurta inay u baahan yihiin caawimaad dheeraad ah isla markaas waxaan wadnay barnaamij tuurur in caruurta aan kaga caawino xisaabta iyo Englishka baaris badan markaan sameynay waxaan ogaanay barnaamijka Englishka iyo xisaabta inaan u helnay solution xal aan u helnay halka aan u helnay waxay ahayd waxaan bal kulay cunug kasta ma dabarigi kartaan macallin u khaas ah maxaad sameeysan hadda waxbarashada caadiga waxa aad looga faa'iideystaa dhinaca computerka waan aragnay computerka in aad looga faa'iideysanayo oo cunugii celcelin fara badan uu helayo caruur fara badan ayaa ku guuleysatay kuwa aanan horay u aqoonin Englishka iyo xisaabtii ku guuleystay kuwa English waligood hore loogu dhigin ayaa bartay qaabka wax loo akhrin lahaa markaas waxaan barnaamijkan aad ku guuleysateen in ay caruur English aqoonin wax bartaan way fududaanaysaa in isla asaga la qaado oo loo bedelo caruurta loo helo barnaamij ayagan u fududeynayo barashada Quraanka ama akhrinta Quraanka marka waxaan sameeynay in aan computer programka anagoo isticmaalayno anigii dhowr dhalinyaro oo computerka ku soo takhasustay isla markaasna dugsiga Quraanka dhigaysay sabti iyo Axad ayaa waxaan bilawnay bal casharka ku celcelinta faraha badan ugu baahan computerized laga dhigo markii ugu horeysay waxaan xasuustaa caruur fara badan oo noo imaanaysa dugsiga ayaan qaadnay barnaamij kamid ah barnaamijyada aan sameeynay ayaan waxaan ku sameeynay arday kasta waxaan ku nidhi casharkaaga ka bax ama hingaadiisa waxaan sameeynay dhibcooyin ahaan ayaan u sameeynay ayada ayuu ka baxay meeqabog ayuu hingaada bartay darbigan ku dhajinay oo computerkii ayaan meesha intaan sameeynay ayaan darbiga ugu dhajinay inuu kasto markuu arka darbigu fiirinaya natiijadiisa meesha ka arkaa hebel 5 dhibcood buu haystaa hebelna wuxuu haystaa 8 dhibcood ninka kalena 15 dhibcood kurtigood waxay rabaan inay noqdaan ninka 15 ka dhibcood wato ninka ugu sareeya maalinta labaad bay soo laabteen qaar baa 30 dhibcood helay mid bog kali bixi jiray ayaa 3 bog ka baxay mid hingaadiisa hoosiisa kor bay u soo kacday maxaa yeelay waxa bilowday tartan ayaga ka dhaxay marka waxaan bilawnay marka barnaamijkan inaan aasno oo u fududeyno waalidkii iyo caruurtii qaabkii ay ku baran lahaayeen ama u fududeyn lahaa dhinaca hingaada marka hadafkanaga oo aan
barnaamijkan nagu kalif ayaa waxay ahayd anagoo aragnay dhinaca tuurinka iyo guul laga gaaray waxaan sinday bal dhinacan waxbarashada hingaada ayadana sidoo kale kaga faa'iideysto saad sheegtay waxa weeye xisaabtii iyo readingkii Englishkii xal ayaa loo helay marka waa su'aal xaqiiqi isweydiin mudan in la raadsho caruurtii quraanka uu ku adkaaday ee ku kortay qurbaha caruurtaas oo la qabsatay qaabkii xisaabta iyo sayniska iyo Englishka loo bari lahaa qaab noocaas oo kale ah oo hoos looga soo bilaabayo oo computerized ah computerka ardaydu ay ku baranayaan in la helo kullay waa waqti badan bay ku qaadataan u maleynaya inaad ka fakartaan arinkaas oo Hindistan oo mintaqaana asaastaan marka su'aasha iyo xigta aan ku weydiin lahaa waxa weeye da'ade ugu talagasheen in barnaamijkan mayduxi.com da'ade ugu talagasheen inay ka faa'iideystaan da'da aan ugu talagalnay waxaan ugu talagalnay caruurta yar yar hadda soo korayso oo alifka lagu bilaabayo caruurtaas oo hadda soo korayso adiga 4 jir 5 jir ilaa qof weyn oo xataa waalidiinta ay ka mid yihiin inay ka faa'iideystaan maxaa yeelay waxaan fiirinay waxbarashada qaabka loo bedelay صح isbedel fara badan ayaa ku imaaday waxbarashada waagi hore waxaa jiri jiray sanad gooni ah in ay class galaan koox kalena ay class fariistaan class kale fariistaan oo badanaa loo fiiriyo da'dooda iyo intay jiraan loo fiiriyo hadda isbedelka imaadaya wuxuu ka mid yahay oo waliba aan cilmi baaris ku sameynay muhiimadda hadda waxbarashada ay leedahay sida loo qiimeeyo dadkii oo isku level aanan ahayn ama isku darajo aanan ahayn waxbarasho waxa la fiiriyo cilmi baaris ayaa la sameeyay صح dhinaca waxbarashada sida loo qiimeeyo waxa la yiraahdaa ilaa $7 trillion ayaa lagu maalgeliyaa sanad kasto lagu qarash garayaa wax kasto la maalgeliyana waxaad arkaysaa muhiimadiisa inta la maalgeliyo ee dadaalka la daba dhigo ayaad fiirinaysaa $7 trillion haddii aad fiirisid inta company ay adduunka ka jiro oo telefoon ah lacagahooda hadda isku soo qaadid 7 mar waxaa ka badan lacagta lagu maalgeliyo waxbarashada inta telefoon adduunka yaalo hadda maxaa yiraahdaa kambanida hana qodo services provider kuwa gadaayo waxa ka lacag badan dhinaca waxbarashada ka lacag badan hadii aad fiirisid dadka xayisiinta sameeyo intaas oo kambaniyo waaweyn baa jira xayisiin sameeyo 600 oo mar ayuu ka badan yahay waxbarashada lacagta laga 600 baa waxbarashada dheer tahay markii lacag ahaan loo fiiriyo hadii aad dalalka fiirisid UK Faransiiska iyo Italy hadda fiirisid ayagoo dhan la isku daray lacagta soo gasho iyo lacagta lagu bixiyo maxaa la yiraahdaa waxbarashada lacagta waxbarashada ka badan yani marka saas dhehaysid waxbarashada dalka Mareykanka aan ku noolnahay mise waxbarashada adduunka oo dhan waxbarashada adduunka oo dhan walow Mareykanka uu yahay dadka ugu faraha badan waa u tagi doonaa insha Allah oo waxbarashada aad u qiimeeyo oo lacagta ugu badan adduunka saan u maaynayo geliyo dhinaca waxbarashada markii aan fiirinayo waxa la waayahay natiijada iskuulada ay hadda soo saarkooda bal muxuu yahay ayaa la fiiriyay waxa soo baxday cilmi baaris hadda dhinaca dawladda Mareykanka ah oo lagu fiirinayo bal iskuuladan intaas oo lacag la geliyo soo saarkooda muxuu yahay hadda tusaale hadaan ku siiyo Mareykanka oo kale hadda dadka caruurta badan aan caawino ay u badan yihiin kuwa degan waxbarashada caadiga cunuga markii uu kindergarten bilaabo ilaa 12th grade sanadkii dawladdu waxay ku maalgelisaa 12,000 meelaha qaar Boston oo kale iyo waxa la yiraahdaa waa 20,000 sanadkii laakiin markii la isku dardaro average waxay noqonaysaa 10 ilaa 12,000 ayaa kaga baxdo dawladda 12 sano dawladdu waxay ku maalgelisaa waxbarashada 127,000 marka waxaan irwaayahay bal intaas oo dadaal ayaa la geliyay bal natiijada laga helay waxbarashada bal maxay tahay maxay caruurta soo saarayso bal caruurta intaas oo la maalgeliyay soo saarka muxuu yahay soo saarkan fiirinay waxa lagu qiyaasaa 30% boqolka cunuga oo iskuul aado 30 kamid ah ma qalin jibiyaan waxaa loo waayahay bal kuwa qalin jibiya aan dib u fiirino 33 kamid ah uma aha diyaar uma aha college because waxa loo waayahay kuwa college-ka aad aan sii fiirino boqolkiiba 46 kamid ah kama qalin jibiyaan college marka intaasoo lacag ah waa la geliyay intaasoo waqti ah la geliyay
haddana natiijadaas baa ka soo baxday si fiican xataa waxay dhaheen okay waayahay markaan waxaan sii fiirino bal aan fiirino dadka minority-ga ama dadka dalkan soo galay hadaytaan ka wada hadlayna xataa caruurta qaarkood oo dal kale intay ka imaadeen maxaa la yidhahdaa luuqadii ay ku adag tahay bal ayaga hala fiiriyaa la yidhi boqolkii cunug oo iskuulka aada 70 ka mid ah 70 ayuu numberka u boodaya haddii laakiin badanaa hadda Soomaalida waxaan dooranaa meelaha dakhligooda uu yar yahay xaafada low income ka yiraahdo ayaga meesha boqolkiiba 30 uu ka ahaa numberkooda wuxuu u boodaya boqolkiiba 50 boqolkii cunug oo iskuul aada 50 ka mid ah maqlin jibiyaan dhibaato weyn oo dhex taalo weyn markaas waxaan rabaa waayahay haday dhibaatadan haysato waxbarashadii inta maal oo aan ka soo hadalnay la geliyay waqtigaan fiirino okay waayahay bal waqtiga hala fiiriyo waxa lagu qiyaasay cunugii iskuul aado first grade ama kindergarten ilaa 12th grade 15,000 oo saacadood ayaa galayso bal isku fiiri 12 sano 15,000 oo saacadood qiyaas ahaan ayaa galayso marka hadii 127,000 la siiyay oo dawladda maalgelisay 15,000 oo saacadood noloshiisana aan ku dareen homework iyo schoolki iyo after school waxaan ku dareen schoolki intuu dhex fadhiyay ahayd intaas la geliyay bal wax soo saarkoodana uu yahay 70% ilaa 30% inaysan qalin jibin waxaan iri bal fiiriya dugsiyada soo saarkooda waxa soo qaadateen macluumaadkaas marka waxaad rabtaan in aad ku fiirisaan oo barbar dhigtaan dugsiyadii quraanka si fiican dugsiyada quraanka maxay yeelay ummad kasto waxay aad ugu dadaashaa dhalinyaradooda waxa lagu xisaabtamaa bari hada dawladdu waxay inta Soomaaliya u gelinaysaa bari ka maalin qofkan in lagu xisaabtamo shaqaale uu noqdo tax laga jaro sida wax looga faa'iideysto dalkii anfac leh naftiisa anfaco maxaa dalkii anfaco baa loo baahan yahay bal waxaan okay waayahay caruurta anaga aan ku dadaalayno ama waalidka maalin kasta uu soo kacayo uu rabo waalid kasta uu rabo cunugiisa inuu meel sare u gaaro inuu guuleysto bal aan fiirino waan fiirinay dugsiyo fara badan ayaan tagnay caruurtii ayaan fiirinay oo waxaan okay waayahay bal aan aragna maxaa soo saarka dugsiyada hadda aadka loogu dadaalayo caruurta waxaan ogaanay boqolkii cunug oo dugsi aada ama kunkiiba kunkii dugsi aada waxaa qaran jibiso 10 ilaa 20 cunug waa 2-4% ardaydaas ma qalan jabiyaan waqti loogu talagalay waliba anaga qaabka aan u fiirino waxay ahayd soo saaritaanka inuu yahay 2% ilaa 4% success rate okay waliba uu ka yaryahay 10% waa number weyn markii kun arday ay dugsigii aaday oo ay ka qalan jabinaysa 20 cunug waxaan u malaynayaa waxaan ka qayb galay qalin jabin mar dhow magaalada ka dhaceysay dugsiyada isku dardartid numberkooda waxaad fiirinaysaa soo saarka wuxuu noqonayaa okay waayahay 100 iyo xoogaa cunug ayaa qalin jabisay intaas kumanaan cunug ayaa ka qayb gashay numberka xaggaas ka arkaysa waliba sii fiirin waxaan okay waayahay bal kuwa qalin jabinaya maxay yihiin waxaan u aragnay inay badankooda yihiin caruurta badan la soo celceliyo weekdays waxa yiraahdo ama maalmaha isniinta talaada arbacada galabkii ayuu soo laabtaa waqti badan ayaa la geliyay mar baan waalidiinta la fariisanay oo arinkan u soo bandhignay markaas waxaan ku niri macallimiintu way dadaalayaan shaqo fara badan ayay barnaamijka gelinayaan bal waalid idinka maxaad gelisaan waalid kamid ah waalidiintan weydiinay waxaan ku niri bal kaba soo qaad cunugaaga dugsi wuxuu ku aaday maalin kasto ama sabti xad buu ku aaday laakiin maalin kasto cunugii wuxuu ka baxay hal aayad buu ka baxay intay ku qaadanaysaa intuu quraanka ku qalin jibiyo ama quraankii uu dhameeyo hal aayad bas maalintii ha xifdiyo waxay noqotay waalidka badankooda gacantay taageen waxay dhaheen 2 sano 3 sano 4 sano qaar baa yiri jawaabta saxda ah waxay ku soo baxday 17 sano iyo 8 bilood oo hal aayad bas haduu maalintii xifdiyo markaas aan waalidiinta weydiinay waxaan idhi bal idin ku jira ama ma u badan tihiin waalidow inaa cunuga la fariisataan oo ku dhahdaan wareey hebel maanta aayadii lagugu lahaa kaalay baro ma dhacdo caruurta badankooda jimcaha ay kitaabka la soo ordaan marka waxaan idhi okay waxa loo baahan yahay xal in waxaan loo helo waxa loo baahan yahay macallin dabagalo caruurtaan markasta in loo helo waxa loo baahan yahay kabiir madaala ah in loo helo waxaad u malaysaa caruurta haddii aad fiiriso game ayaa aad u ciyaaraan game ayuu ciyaaraya aflaata ka saac marka waxaa jiro markii karatayga aad qaadanaysid waxaa loo baahan yahay inaad fahantid qofka aad la harjamaysid waxaa la yidhaahdaa hadduu qofka kaa xoog weyn yahay feerku kugu soo tuuro lama celiyo haddaa celisid jug ayaa kusoo gaarayso hadduu weliba qofka kaa xoog weyn yahay laakiin haddaa feerkiisa qabatid
oo aad sa u qabatid oo hore asaga u raacsiisid asaga hore u sii socday oo sii taraaraxaya isaga sii dhacay caruurta maadaama game jecel yihiin computerkan laga celin la yahay maxaa sameeysan baan ayaan sanadin waayahay wixii ay ciyaari jireen halo wax barashaha loogu bedelo cunug wuxuu ku faana jiray 5 dhibcood ayaan helay 20 dhibcood ayaan haystaa dameer ama maxaa la yiraahdaa monkey boodboodayo bay badana ciyaaran ama nin iska ordaayo boodaya waalidka badankooda telefoonka la qaata dad si fiican si fiiris cunugan game ay ciyaaraya wixii marka waxaan u bedelnay wax barasho ahaan computerkaas ayuu galaya alif ayuu ku celinaya markuu ku celiyo xalay ma sha Allah waa dhameystirtay 5 dhibcood ayaad heshay iskuulkii u imaanaya wuxuu leeyahay hebel anima ogtahay 20 dhibcood ayaan haystaa ama 5 dhibcood adna 5 ayaad haysataa labadoodu is barbar dhigayaan kii 5 haystay uu laabanaya wuxuu rabaa inuu qofka kala dhaafo marka waxaan sameeynay qaabkii waxbarashada sida iskuulaadka hadda ay u casriyeeyeen ayaan anagan waxaan u casriyeeynay si ay uga faa'iideystaan waalidkii iyo caruurtii ay sax way waanu haysanaa dadkii cilmiga yaqaan aqoon-yahaniintii waa haysanaa marka waxa loo baahan yahay kaliya barnaamijka in la abuuro waxaan jeclahay inaan ku daro daraasaad waa dhaxdaas la soo saaray oo ku saabsan caruurta gameka ciyaara waxa la yiraahdaa 80% mise 85% caruurtu markay gameka ciyaarayaan way ku dhacaan isla markiiba hore kama gartaan iyadoo isla sidaas ay tahay haddana waxay jecel yihiin inay gameka sii wadaan oo ay ku sii socdaan marka waa wax farxad leh maanta haddii aan helayno caruurtii quraanka kariimka wax ku dhiirigeliya oo motivation siiya oo ku sii socodsiiya xaqiiqadii barnaamijkani mayduxi.com waa barnaamij loogu talagalay dhamaan caruurta ku kortay waqooyiga America Europe Canada dhamaan qurbaha ku kortay waxa uu ka caawinayaa quraanka kariimka ahaa waajibka ku ahaa in ay bartaan adduun iyo aakhiraba ay ku liibaanayeen in ay si sahlan ay u bartaan marka waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo mahad maadaama aad tahay ninkii barnaamijkan aasaasay mayduxi.com waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo markii aad hirgeliseen kulay waqti waad hirgeliseen muddo ka soo shaqeynaysan maxaa faa'iido ah oo idinka ka adiga qaasatan ka maamul ahaan ka aasaas ahaan maxaad aragtay oo faa'iido ah oo barnaamijkan mayduxi.com ka soo baxay faa'iidooyin fara badan ayaan barnaamijka ka helnay faa'iidadaas oo badankeeda u badan tahay cunuga maalmaha uu naga maqan yahay inuu helo kabiir ugu celceliya casharkii oo aanan daaraynin marka cunuga uu noo imaado waalidka inaan ku dhahan wareeg kaalay haye casharkaaga buu fur hebelow uu furaya markuu furo waxaan leenahay maalin hebel oo soo gashay intaas daqiiqad ku jirtay grade-kaaga waa intaas isla markiiba waxaad ogaanaysaa meesha cunuga uu ku liito saxda dhahaysay gamekan la ciyaarayo cunuga qofka uu ku dhacayo 80% maxaa keenay inuu ku laabto maxaa yeelay waxa la siinayaa fursad kale oo ku laabto hada cunuga hal mar 10 ka dhaco wareey bax wax ma garanaysid dhibaato leedahay hada caruurta dhashay caruurta yar oo hada dhalatay markii ay gurguranayaan cunuga ma qamar ayuu dhacaa ustaagaya u dhacaya lama dhaho waa kii dhacaya meeshiisa ha fariisto waa fansamaha uu kacaya ustaagaya waxa loo baahan yahay marka cunuga in la siiyo fursado fara badan oo qaladaadkiisa wax kaga barto barnaamijka marka cunuga markii uu su'aal la weydiiyo hadii uu qaldo isla markiiba asoonan meel kala aadin ayuu helaya jawaabta saxda ahayd oo sharaxay alif ayaa lagu weydiiyay ya ayaa taabatay isla markiiba uu tusinaya marka cunuga wuxuu helayaa qof cashirka ugu soo celceliyo intuu naga maqan yahay markuu noo soo laabto sabtida axad faa'iidada ugu jirta waxay tahay anaga waxaan hubinaynaa cunugan barnaamijka ma soo galay shaqadii loogu talagalay ma qabtay cashirka markuu qaadanayo waxaan leenahay okay waa hebel agteeda ku samee dhibciha fiirinaysa hebel waxay ku qaadatay daqiiqad adna 5 bay kugu qaadatay maxaa ku diiday oo ku ceshan karta casharkii marka anaga hadda administration ahaan ama iskuulka dugsiga maamulkiisa waxaa noo fududaaday casharadii caruurta aan u direynay waxaan gaarnay heer caruurta qaarkood ay gaaraan maadaama waxay game u yahay ay ciyaarayaan caruurta qaarkood hadda kitaabka quraanka u dhiibaysaa bugaa rabtad furaysaa waxaa leedahay hebel kitaabka quraanka uu furaya ama bugaa rabtid aad u furaysaa waxaa leedahay aqri oo aqrinaya arin fiican taa waxaan ugu sii duldarnay inuu fahmo gameka waxaan u sameynay erey quraanka aad ugu soo laabto hada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim ereyga min quraanka wuxuu ku soo laabtaa 3,000 oo mar Allah
quraanku wuxuu ku soo laabtaa 2800 labadaas eray oo kaliya cunuga haduu barto 5800 eray ayuu yaqaanaa يعني marka ugu horeysa haduu barto hadhow gadaalna oo baahna qof kale inuu weydiiyo uu yaqaanaa maadaama intaas oo jeer oo ku soo laabanayo quraanka dhexdiisa si fiican bugu furaba uu ka helayaa marka faa'iidada aan ka helno waxay tahay caruur Soomaali ah oo ku dhalatay dalkan waligood Soomaali aadin kitaabka Ilaahay furi karo akhrin karo fahmi karo xaqiiqdu wax lagu farxo weeye waa dhibaato weyn ardayda ku kortay qurbaha dhibaato weyn oo haysato weeye quraanka kariimka in ay bartaan marka waxa ku daro malaxaas ah marka magaalada imaaday moolkan tagay anigoo maktabad ku dhex jiro wiil yar oo fariid ayaan arkay adeer waxa ay siisa buugaas kalarka ay si saddex kalar oo buug kala duwan ayuu gadanay saddex nooc oo kala duwan marka waan fiiriyay waxa kale baan ku dugsiga aada waxa rabin aan u faa'iideeyo xaawil dugsiga aan aada quraanka suuraday ku jirta wuxuu yiri juska 8aad ayaan hadda ku jira laakiin quraanka horaan u dhameeyay marka waxaan ku yiri ma sha Allah arin fiican suuratul Faatiha ma fasiri kartaa ma aqaano yiri ma fasiri karo waa ka soo tagay marka waxaan ku yiri waxaad sameyn kartaa eray ma ku baraabaan ku yiri quraanka aad kugu fududeynayo dhowr eray ayaan weydiiyay quraanka aad ugu soo laabto fasiri kari waayo waxaan ku yiri barnaamijkan qaado orod guriga la tag soo bara soo farxsan buu tagay hadda baranaya wiil waa u baahnaaba in micnaha quraanka aan fahmo wiilasha kamid ah hooyadiis ayuu u sheekeynay wuxuu yiri hooyo ma ogtahay quraanka waagi hore wuxuu ila ahaa Chinese sabab luqadan aqoonin laakiin hadda markii aan akhriyo waan fahmayaa وانا كما عن سدا محاير إلهي قرآن كيسي قام فهم أيوة تنقول بس وحي أحد وحن أسعدي أن مهل هذيك وحن جوي قلنا جبين عروف ربنا ما شاء الله يقلن كقلنا جبين القرآن كعروت بان أحمر عروت الله بقول قادنا كوا ما شاء الله والد كأدوا لدالين وقت فربنا للجلية مركي وسكول كذا معه كلاسي عربي الوقرة كوا كما هذين وحن كهذين عادي هن كوا سبتي حد دكسي القرآن كعادو أما شنت مع الموضوع كود ذا القرآن كي حبن تيسا دور عنو جاي وحن كل القرآن كم فهم يسا سورة الفاتحة ما فسر كرتا سورة ده يرير القرآن كعادو وصل الله ويرير هذا اللغة كذا كلمة فسر كرتا ما فسر كرو عاد أنا وجانا حي محيلي عنو جاي محمد دقيقة هذا القربة قربو جوجا ضد كيس أرك الدونان وضد أفنجريس كواحد ليه صحوي إلهي كتاب كيسا وهذا حفظيي حتى لابا إري أما سدح إري موجود بينكر marka dhibaatana haysto marka macallimiintan aad bay u dadaalayaan anaga waxaan fiirinaa waqtiga macallinka uu haysta xataan fiirinaa macallinka asaga hadda maxaa yahay wax badan kor laga ma saari karo la hadda fiir tusaale waxaan sameeynay macallinka wuxuu hayaa 30 cunug klaaski 30 cunug ayuu hayaa meesha fadhiya waxaan weydiinay caruur waalidka waxaan weydiinay macallinka meeqa daqiiqadood ayuu cunug kasta siin karaa 30 cunug hadday klaaska ku jirto klaaskina 3 saacadood yahay waan xisaabinay meeqay noqonaysaa cunugiiba inay ku soo hagaagto 6 daqiiqo oo kaliya شان أما 6 دقائق قاركود كير ولبها كما حد لنا ده معاني كمركو ليها ولا فريسو والدك صودا هي كم درينه وحياة فرب بدن إنه كدرين بجر 6 دقائق وقت بدن معاني كانوا حير هذوني هذا الدقيقة روح لمت كستوى النصيب عن ليه مرك معاني كود دالية لك وحلو بهين هي دبقل فرب بدن مرك معاني دبقل كريس ده كريه لوجه الكرو وحاوي معاني كمان شلقة مسارة معاني نجي لها أيال الدوبي وحي بالوجه العلينية هذا عنق تصارن قصيو أريج السين محنك لقيها بقى إنه عنقه يماذو يرحل أرجع مع حسين وسمي يعني حرف كاسين وكفي لقيها ظهر وعلى العليم محنك لقيها بينه دالو أما محل هذا صفقة وكل يريها يعرف كلا يسويش حلوات كفتة أرض بح هذا يقولي قطعه مهلا واحد وقوع العلي لكن برنامج كأنا قاعد سميني عنقه وطابنا يا عنقه حركة أفرتن مرحلة أريكو عشت بس شيء markii arkaan wixii in la siinayo maxaa yiraahdaa fursad kale uu ku ceshanayo ilaa wixii asaga fahmo maxay wuxuu rabaa inuu u gudbo levelka ku xiga marka barnaamijka faa'iido fara badan oo sidaas ah ayaa ku jiro daawadayaal wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeennii arrimaha waxbarashada waa fursad qaaliya maanta alxamdulillaah waxaan fursad u helnay walaal macallin mahad oo ah nin aasaasay barnaamij ardayda ku kortay qurbaha aad iyo aad ugu fududeynaya quraanka kariimka in ay bartaan barnaamijkaas oo la yiraahdo myduxi.com dabcan waa ka hadashay mahad faa'iidada aad ka aragteen barnaamijkan markii aad hirgeliseen oo aad dhaqan geliseen waxaad kaloo ka soo sheekeysay xagga ardayda faa'iidada uu u leeyahay iyagu laftirkooda markii hirgeliyeen oo ay ku dhaqaaqeen waxaan rabaa in aad wax yar nooga sheegtid waalidka xaqiisa wax yar waa dul martay
laakiin waalidka ma ku farxeen barnaamijkan markii aad samaysay qaar weli su'aalo qaba miyaa jira ma waxay rabaan in barnaamij sidaas oo kale barnaamijkii loo sii adkeeyo ama barnaamij noocaas oo kale loo soo sameeyo maxaad ka aragtay xagga waalidka horta dhan haddii dhinaca waalidka la fiiriyo saan uga hadalnay waalidka dadaal fara badan ayuu rabaa waalid kastana wuxuu rabaa cunugiisa inuu guuleysto waalidiinta marka kala duwan waalid waxaa jira quraanka yaqaano hingaada yaqaano laakiin guriga intuu cunug u fariisto wax baro waa sida loo baahan yahay laakiin runta sida ah waalidka intay u badan yihiin shaqo ayay aadaan cunugii bay usoo shaqaynayaan habeenka marka guriga la iskugu imaado aad bay ugu adag tahay badankooda in cunugii la fariisto dabagal fara badan la geliyo waagarad soomaha qaarna waxaan u fiirinay maba yaqaanaanba horay dugsi quraan looma geynin wixii laftirkooda madmadow adabku yaqaana bay qaarkood iska systemkaas ay ku socdaan waxaan meesha ku yaalay cunugu wuxuu wadaba ma fahansano marka waalidkii baa kala duwan barnaamijka marka wuxuu fududeynayaa waalidka xataa aanan aqoonin oo cunugii casharkii aan u meerin karin ama aanan u aqrin karin maxaa la yidhahdaa hingaada uma baahno waxaa jiro macallin ama kabiir daba socdo oo casharka u fududeynaya aan daalaynin waxaan xustaa waalidiinta ka mid ah yar afrikaan ah ayuu ahaa wuu ii yimid wuxuu yidhi ereygan meesha dul saaran cunugayga samaawaata inay ahayd baan jeclahay markaas wuxuu yidhi ereygan meesha dul saaran wowga alif baa iska dul saaran waa fahmi la ahay qaabka wow alifka meesha ka dambeeyo cunugayga wuxuu leeyahay alifkaas inaan ku dhawaaqo soo ma ah ani ma garanayo wuu yidhi marka dee maxaan sameeyaa markaas waxaan ku kaalay waan tusiyay website-kan u furay casharkaas oo faahfaahin ah ayaan u furay waxaan ku yiri bal daawo uu arkay cunugii buu ku laabtay asaga marka si degan hadana uu explain garay wuxuu ku yiri daawo videogan qor casharka qor waxyaabahan ku qasbna carruurta waxay tahay waalidka qaarkood waxay sameyn karaan hay wariya hebel casharka waxaan ku qabanaya waqtigaas 10 daqiiqo 15 daqiiqo saacad xaga fariiso samee okay waayahay marka sameynaysa casharka qor waxaan ku qasabnaa casharkiiba cunugii toomar ku celceliya baan ku dhiirigelinaa hadduu toomar cunugii casharka ku ceshceshto ama uu qoro maskaxdiisa ayay gelaysaa casharkaas usbuucii hal mar maalintii mar kale asoo wixii si fiican u bartay meesha marka waxaan ka saarnay waqtigii faraha badnaa ee waalidka qaarkood ay hore u gelin jireen dhinaca xariiqinta ama maxaa la yidhahdaa ku celcelinta inay helaan macallin wixii ugu soo celcelinaya oon daalaynin inay gurigu ka helaan xataa haddii waalidku maqan yahay ama baabuur wado ama maxaa la yidhahdaa meel kale aado inuu geli karo systemkii uu fiirin karo hebel wariyac waa ku jeeda maanta maada soo gelin wuxuu tusinayaa xataa qaar waxay ka cabsanaan game inuu cunugi galo barnaamijku wuxuu ku tusinayaa cunugan haddii kaba soo qaad 10 buu qaatay 2 daqiiqo ku qaadatay 10 kale u dirtay game buu iska galay waxa ku socda waqti ayaa ku socdo waalidka report u diray hadhow wuxuu leeyahay cunugan 10kii 2 daqiiqo hore ku qaatay 20 buu ku qaatay marka waxa isweydiin leh 18 daqiiqo maxaad haysay report card kaas wuxuu u tagayaa waalidkii macalinkiina wuu helayaa ardaygiina waa la tusi karaa beri oo lagu la xisaabtami karaa si fiican marka waa runta marka waxa u fududaatay waalidkii oo ku adkaa hingaada in uu hadda waqti ahaan geliyo kaliya hebel meesha fariiso samee carruurta guriga joogta xataa lagu dhiirigeliyo qofkaas wuxuu marayaa level 5 adiga waxaa maraysaa level 2 labadiina qofka ugu waqtiga badan ugu dadaalka badan su'aalaha ugu badan ka jawaabo wuxuu helayaa arinkan marka waalidka shaqadiisa waxay isku bedelaysaa dhiirigelin maxaa la wixii casharku ku duuban yahay casharku qaadan lahaa meesha ku jira ku celcelintii report cardkii wax dhan meesha ku jiraan shaqada marka waxay isku bedelaysaa inaad ku dhahdid kaliya haye ma sameysay itusi meeqa dhibcood haysaa yar cunuga kalena aad fiirisid labadooda isku barbar dhigtid isbuuca la soo dhaaf intaan sameysay isbuuca intaan sameysay say noqoto marka waalidkaas isaga laftirkiisa daalkaas intaas ayaa looga baahan yahay dhinaca dhiirigelinta marka waalidka aad ayay ugu nasteen casharkiina uu ugu fududaaday faa'iido kale waalidku ugu jirta ayaa waxay tahay kaba soo qaada dugsiga hadda in laga yaabo ay ku qaadato cunugii 6 bilood ama sanad ay ku qaadatay hingaada barashadeeda laakiin marka cunuga 7 maalmood oo min 10 daqiiqo mise 15 daqiiqo ama 30 daqiiqo oo helayo waxaad soo jaraysaa lacag fara badan ayaa xataa ku save garaysmayso dhinaca haddii la fiiriyo hingaada kaaga bixi lahayd maxaa yeelay waqti gaaban ayuu cunugaaga wax kuugu baranaya meesha ku qaadan lahayd sanad 2 sano waalid waxay dhahaan marka qaar cunugan hingaada aan ka bixaynin waa maxay waa in la fiiriyo ama dhinaca macalinka ama waalidka ama cunuga wax badan in la fiiriyo waxyaalo badan baa jira oo arrinkaas sababaya si fiican marka kulley waa macallin
waa macalin oo kale kabiir aan daaleynin macalin aan daaleynin oo mar walba aad u baahan tahay waad geli kartaa username iyo password baad leedahay marka waad geli kartaa kadibna waxa waa casharkii waxyaalaha cajiibka badan waxaa ka mid ah report cardkaas waalidku uu arkayo macalinkii uu arkayo ardaygiina beri lagula xisaabtamayo oo la dhahayo xalay waa fadhiisay waxaa tiraahday casharkaygan ka shaqaysanaya laakiin 5 daqiiqo kaliya ay gelisay meeshii lagaa reebo 2 saac 3 saac ama 40 daqiiqo inaad gelisid 5 daqiiqo kaliya u jeedna maxaa sameynaysa marka xataa waxaa ka baxaysa halkaas waalidkii cudurdaar inuusan yeelan karin waalidkii dhihi jiray anigu quraanka ma aqaani ama anigu hingaada ma aqaani barnaamijkan aad buu u anfacaya xaqiiqdii marka daawadayaal waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeenii arrimaha waxbarashada barnaamijka arrimaha waxbarashada waxa uu idinkaga imaanaya mar labaad TV-ga Somali Cable mar walbana waxaan kusoo bandhignaa barnaamijka arrimaha waxbarashada waxyaala mowduucyo xasaasi ah mowduucyo muhiim u ah mowduucyo anfac u leh arrimaha waxbarashada aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa mahad maxaad kaloo ku dar lahayd mahad gabagabadii barnaamijka faa'iidooyin fara badan ayuu leeyahay ay waalidka ka faa'iideysan karaan waxaa ka mid ah cunuga koo markuu imaado in imtixaan uu computerka ka qaadayo inuu helayo 120 cashar oo duuban oo waliba luqadda af Ingiriiska ugu dulmarayo cunuga uu tusinayo inuu barnaamijka leeyahay 149 cashar oo maxay yahay cunugu asaga uu wax leexinayo uu taabanayo uu ka qoran karo uu dulmari karo barnaamijka uu leeyahay 126 imtixaanood cashar kasta uu dhameystiro 126 cashar oo imtixaan ah oo kiiba 15 su'aal ilaa 10 su'aaladood ku hoos jiro kumanaan adiga maxaa la yiraahdaa su'aaladood ay meesha ay ku jiraan cunuga ka faa'iideysan karo waxa kale oo la socdo 159 quiz oo barnaamij shaqo badan la geliyay oo cunuga markuu cashar ka dhameystiro imtixaankaas laga qaadayo oo soo hore u gudbi karin ilaa uu maxaa la yiraahdaa safku imtixaankaas uu maro waxa kale oo meesha ku jiro PDF book wax la yiraahdo oo waalidka ay soo dejisan karaan oo ay u daabici karaan cunugii casharkii ayaa ku qoran waxa ku qoran maxaa la yiraahdaa su'aalihii meesha ugu qoran yihiin sida agooda hadalnay full report cardkii oo meesha asagana ku jiro gamification wax la yiraahdo oo caruurta ku dhiirigelinayo dhibcooyin siina hadda nin waxa arkaysaa general ah muxuu ku yahay hal dhibac ayuu wata ayaa lagu leeyahay in hebelna 3 dhibcood kan 3 dhibac ayaa ka sareeyo wuxuu kaloo leeyahay leaderboard cunuga ugu shaqada badan ayuu wuxuu soo dulmarinayaa meesha ugu sareyso dhinaca buuga tracing sheets casharo cunuga gacanta la dulmari karo marka barnaamijka waxaa la socda casharo fara badan haddana waxaan ku daraynaa 2 barnaamij kale oo hadda aan ka shaqeynayno mid uu yahay Islamic studies oo anagna caruurta aad inay ugu liitaan basic book aan uga soo bilaabayno caruurtii ay soo video ay soo daawan karaan hadda barnaamijka kale oo meel fiican noo marayo insha Allah bishaan aan soo deyn doono af Soomaaliga maxay la marka aragna faa'iidada af Ingiriiska xisaabta ay ugu leeyahay dhinaca isticmaalka computerka kan hingaadana aan sameeynay waxaan idin maxaan kala sameeynaa aan ku darnaanay marka af Soomaaliga hadda insha Allah marka inta soo barnaamij ayuu baan hadda wadnaa marka faa'iidada waxaan u baahnaa waalidka inay ka faa'iideystaan oo caruurtooda maal gashtaan si ay bari ka maalin ayaga wax ugu taraan maxay maalintii yawm aakhiro cunug kasto oo quraanka xifdiyay ama level fiican ka gaaray quraanka xifdiyay waalidkiisa waa la sharfi doonaa oo koraya waxa looga saarayaa taaj marka waalid kasta inuu ku dadaalo cunugiisa inuu aakhiro ku guuleysto maxay taas ayaa guusha saxda ah waxaad ka hadashay barnaamijka faa'iido uu leeyahay waxaad ka hadashay barnaamijkan inuu yahay barnaamij xaqiiqdii aad anfac u leh caruurta Soomaaliyeed ee ku kortay qurbaha meel walba ha ka joogaan qofkii rabo barnaamijkan inuu helo halkee ayuu ka dooni karaa waxaad galaysaa www.myduxi.com meesha ayuu ku jiraa barnaamijku waxaan ugu talagalnay qof kasta oo muslim ah guriga ha joogo dugsi ha dhigto school ha ku xirnaado website-kaas ayuu ka gali karaa telefonkanaga informationka meesha ku qoran yahay waa nagala soo xiriiri karaa barnaamijka xataa waxaan u diyaarinay waa series ah oo aan barnaamijka ku sii horumarinayno qofkii raba inuu ka qayb qaato horumarinta barnaamijka ka qayb qaadan karaa qofkii asaga raba inuu iibsado uu iibsan karaa qofkaanan awoodin
waxaan u sameynay dadka agoonta ah oo kale ama dadka aanan awoodin code gooni ah oo ay gelinayaan oo bilaash kaga dhigayo ayaga lacag lagama qaadayo حتى scholarship ها maxay waxaan rabnaa hadafkana wuxuu yahay qof walba oo muslim ah inuu gaaro heer kitaabka Ilaahay uu kaligiis furan karo akhrin karo fahmi karana marka barnaamijka saas website-kaas ayaa laga heli karaa daawadayaal waxaa soo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni arrimaha waxbarashada waxaan jeclahay barnaamijkaasi in aad uga bogateen waxaan jeclahay barnaamijkaasi inuu noqdo barnaamij maanta caruurteena ku kortay qurbaha ay anfacsadaan waxaan sidoo kale jeclahay inaan ku baraarujiyo waalidiinta barnaamijkaasi inay ilgooni ah u yeeshaan waxaa idin soo gudbinayay barnaamijka arrimaha waxbarashada anigoo ah Cabdiraxmaan Xidig waxaan jecelnahay maanta inaan idinkaga tagno sidaas iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh